haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo Harry. sheekadan waxay u dhacaysaa sida tan: Harry mar walba uu shaqada ka imaado uu quweysan jiray kadibna sariirtiisa ayuu tagi jiray si uu u seexdo. laakiin Harry habeenadii hore u soo maray habeenkan wuu ka dubnaa, sababtoo ah markastoo jiifays yiraahdo ma jiifanayo wuu soo kacayaa. kadib wuxuu imaaday talaajada wuxuuna ka soo baxsaday caag biyo ah, biyihii ayuuna cabay wuxuuna ku soo laabtay sariirtiisa. mar labaad ayuuna jiiftay, laakiin Harry mar kasto duudkiisa ayuu wuxuu ka dareemayay qof gacantiisa inuu ku taabanayo oo kale. laakiin Harry marka koowaad sooma kicin, mar labaad ayaa xoog loo xoqay, gadaal ayuuna soo fiiriyey wuuna soo kacay. misena wuxuuba arkay qof bini'aadan iyo bahal wuxuu yahay aan la kala aqoonin. wuxuu u ekaa qof bini'aadan ah oo duqoobay, muddana aan quweysan, cidiyahana muddo aan iska jarin. Harry aad ayuu u baqay, cabsina way gashay. indhaha ayuu fiishka iska bixiyey, kadibna mar labaad ayuu fiiriyey, isla markiiba ninkii wuu waayay. Harry asigoo aad u naxsan ayuu sariirtiisa ka soo booday, meelaha dham ayuuna fiiriyey, ninkiina wuu waayay. kadib Harry mar labaad ayuu wuxuu ku soo laabtay talaajada, biyo ayuuna ka cabay, kadibna sariirtiisa ayuu ku soo laabtay wuuna jiiftay. laakiin Harry mar labaad ayuu duudka ka dareemay sida hadaaye oo loo xoqxoqeeyay oo kale. Harry mar labaad ayuu wuxuu arkay ninkii, gacanta ayuuna ugu tilmaamay inuu soo raaco. Harry wuxuu yiri, maxaa ka wadaa? ninkii wuxuu ku yiri asigoo hadlaya, isoo raac. wuxuuna farta ugu tilmaamay talaajada Harry talaajada ayuu furay, wuxuuna ka soo bixiyey caag saddexaad oo biyo ah. ninkii wuxuu ku yiri, biyahan cab si aan kugu sheego sababta aan kula joogo. Harry biyihii ayuu cabay, kadib ninkii wuxuu ku yiri, soo soco isoo raac, banaanka ayaa aadaynaa. Harry wuu soo baxay, albaabka ayuuna furay. banaanka marka uu fiiriyey aad ayuu u yaabay, sababtoo ah Harry dabaq ayuu degnaa. hadda markuu banaanku u soo baxayna meeshii waaba dhul caadi. asigoo yaaban ayuu Harry soo baxay, ninkii ayuuna soo raacay. ninkii banaanka ayuu u baxay, kadibna wuxuu ku yiri, soo soco ee soo bax. laakiin Harry wuu soo bixi waayey, sababtoo ah lugihiisa ayaa dhulka ku adkaadeen. roob ayaa soo da'ay xoogaa kadib. Harry markuu indhaha kala qaaday wuxuu ogaaday in wixii uu arkayay dham ay ahaayeen riyo. wuxuuna taagnaa dabaqada ugu sareyso ee dabaqa. markii ninka soo baxa uu dhahayay, meesha wadda caadi ma ahayn ee waxay ahayd booshii uu ku dhiman lahaa Harry. Harry aad ayuu u naxay, qolkiisa ayuuna u soo orday. Harry wuxuu ogaaday roobkaas haddii uusan ku dili lahayn in uu halkaas ka soo boodi lahaa. Harry asigoo aad u naxsan ayuu wuxuu imaaday qolka, wuxuuna arkay dhalo khamri ah oo talaagadiisa ku jirta. wuxuuna ogaaday Harry markii uu riyada ku jiray inuu cabin biyo caadi ah, wuxuu cabay khamri. run ahaantii Harry aad ayuu u baqay, aadna wuu u cabsaday. ninkaasina wuxuu fahmi waayey waxa uu ka rabay. Harry markii uu riyada ku jiray oo khamriga cabayay wuu miir daboolmay, wuxuuna samaynayaa Harry wax kasta oo lagu amro, ninkiina ku amro. Harry asigoo aad u naxsan ayuu mar saddexaad sariirtiisa tagay wuuna jiiftay. laygtana ha hilmaamin.